maalintii aan wareejinay xilka wixii meesha ku jiray waan sheegay way openly waan sheegay way wixii soo socdayna waan sheegay way waxa already ku soo jiray line ku soo jiray way wixii effort u baahan ee la doonayo in wax laga qabto si loo helana waan sheegay waxaas oo dhan waan sheegay waxaan idhi markaa anigu ilaa 30 milyan ayaa meelaha ku xadfanaa waan ku idhi exactly kabridaasan isticmaalay meelay ku kala xadfayin haddaad meel kale ku wada shubto dadku way hunguraynayaan wasaase ya meelay laakiin meeluhu waa central bank okay ya central bank meelihiisa ayay ku kala xadfanaa lacag yaroo ka timaada Turkiga iyo lacag yaroo ka timaada EU-da iyo waxyaalo kale oo yaryar oo World Bank ka yimaada iyo intii anagana soo gashay ma naga soo gashay revenue yaga waxa marka la isku keeno waxaan ku qiyaasay ilaa 30 milyan yaan ku qiyaasay boqolka milyanna waa sheegay kale ee soo socday oo marka aan already sahay waa kan hadda yimi weeyaan intaana waa sheegay lacag kale oo waxay hadii sida loo socdo badan oo imanaya jira ya oo laakiin kaaga baahan shaqay kaaga baahan iyo inaad jeeb tuuga taqaanad nimanka jeeb tuugooda ya yani meelaha wax ku hayaan way ogaataa oo tan iyo halka wax ka eega oo halka kale wax ka eega oo tan wax ka eega wax jira lacag oo biyo loogu talagalay kaliya hadaan ogeyn ma ogaan kartid wasaas ya wasida lacag special flexibility fragility loogu talagalay ma jira hadaan ogeyn ma ogaan kartid ya okay lacag general la kayr gareeya jirto ani wax badan Soomaaliya ka soo gaadhay taasuna dad ku ekaato waxba helmaysa marka aad meel walba ogaan kartaa waxa hinti si waad bixisay dawladda cusub oo sheegtay meesha xaal maraysa wax loo helay waxba kama dhinaca kale Dr. Beylo warar baa jira sheegay in xilligii kala guurka dawladda cusub markay timid culays lagu saaray ama xoog lagu saaray ama in xoog lagu xisaabtamo si aadan ka raali ahayn la sameeyay in qaarkood warka xilliin waa la hadiday wasiirka وحتى waxa la yiraahdo hadal oo sida anagu aan jecelnahay oo hadal oo ah in meesha aan wax ku jirin in khasnadu ay lacag yar ku jirto arrimahaas ma jirtay miiska sheeko ku turkutaan mise waxba ka jira arrimaha culayska kulliye wixii Soomaaliya tiraado waxba ka jira wixii Soomaaliya tiraado exaggeration uu ku jira ka badbadin way jirtaan in between weeyaan labada dhexdooda waqtigii aan waxaan isleeyahay labadii sanadood ee ugu dambeeyay dhibaato weyn baa ka taagneed wadanka gaar ahaan maaliyadda aan waxaas leeyahay diyaar waxa kursiga igu socday yani waxyaalo fara badan oo kursiga aan ku hadlaynaa waxyaalo badan oo dhici lahaa ayaa ilaahay aniga igu soo inaan dhicin ya de hadii aanan anigu dhabar adeegin oo aanan wax walo dhanba no oran يا حبر والله أنا مشان الله بحيان إله أنقول أرد مشان الله ما بحيان وان ير أجوبة يا لوك هتيجي مركا كان وبس كان يو سياسات يو وحبا جرا مارتي يو مقارنسا elections باجرا كان أجرا كاس أجرا وحاس أجرا هبل باو على يا واي مركا أنا وحن قاصتي سنة هرتي مركا وحنا جري قرأ مدحويني هي رئيس الوزراء هنا يسكو مثلا بنانين يا وحوجا وير كله تاجي صح مسؤولية أنت إذا بدنا رئيس الوزراء على صاري ووطن كيف واحد لقوا سوكوبي تورشوا تورشوا ده واحد مسؤول كها رئيس الوزراء الدولة ده رئيس الوزراء نورمالي كمسؤولة مدحوين وهناك سوتاجي موقت واضح مركا سنة كسوة وأتكا سنة كايا بركاس لبعض كي بلود وجودن بي إلى مالين تي الدورين مدحوينها يعني مالي تاريلي باندر أنا موقت أنا مالي تمر الله مركي لدورت مالي تكحي تبونتي أيه وان كده دعيه وحماش صار عرفتها مالي تاس النفس كورس مالي تاس النفس كورس وتر الحمد لله absolutely وياه أن إذا مدى المشاركة سينشرتين مركي خصنا حداد كتكتي أن ويرانتي إمسي مشار سي قاعدن كران بس الدول ده عصبة مركب بلابس إن يدو يجا بالعوي تانو وحن كنت لقى سنة هاي haddii bilaquma yihiin waa inay weligood qaataan ilaan waa dhibaatadii waa laga soo baxay haddii bilaquma yihiin waa inaan mushaar laga warwarin ya haddii si fiican loo xisaabtamo haddii si toosan loo socdo sidii aanu soo socno haddii loo socdo mushaar waa inaan laga warwarin waa wax kale loo gudbaa wadanka dhismihiisa waa loo gudbaa su'aasheeda kale waxa weeye wasiir inaan ku weydiiyo
wasiirka maaliyadda dadka Soomaalidu ama bulshada Soomaalidu shakhsi sidee bay u arkaan markaad wasiirka maaliyadda tahay adiga iyo shacabkii maxaa idin kala gaaraya sidee ku arki jireen aniga horta dadka qaarna waxaan leeyahay dadka dawladda u shaqeeya ima jecla aniga waay ya sababtu waxay tahay waxa weeye meel hoo u baahan hadal wax kama taro wasaase ayaa la yisoo ma marka noodeeda badan waay ya lacagta way allocate garaysan tahay budget baan ku socota ya waxba lagu talagalay haddaan maanta lacagta bixiyo bari kii kale lama bixin karayo soo ma budgetku wuxuu u samaysan yahay afar category 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 buu yahay moogta waay ya haddaad intaa in leeyahay $2 haddaad hesho ciidanka mushaarkiisa bixinaysa budgetkay ku qoran tahay oo baarlamaanka ansixiyay ya waay $2 kale haddaad hesho cuntadooda bixinaysa $2 haddaad hesho waxaad bixinaysaa running cost-kooda fuel-kooda iyo hawlgalkooda iyo arrimahooda haddana shaqaalihii baa ku hadhay civil service baa ku hadhay marka haddii garabka wax kale laga soo geliyo dee tanay ka dhinmaysa waa sax ceebta ugu weyn taasay noqonaysa marka arrintaasi arrin fudud maaha marka nin loo imanayo hadii shir kalarka la haysto halkan loogu soo shubuxna si lacag ayun baad ku jirto waan kala quusanay xasalkaas annagu waan kala quusanay waan kala quusanay dadkaas markaa kuma jecla ima jecla mana waxba yani dad markii dambe horta marka hore waxa la isleeyahay ninkana cid buu wax siiyaa baa la isleeyahay sidan maaha cid gaar sanadka hore oo dhan waxa la hebel buu siiyaa kan lama ma siiya kan uu siiyaa ka ma siiyo laakiin waan isbarannay ya ma soo helaysid ya waxa aad ka hadlayso cid aan siiyay ma jirto mana soo helayaan ya waa hagaag dadku maadaama Dr. Bill ay ku haystaan nin maaliyadii gacanta ku hayo oo soo doona u sarrifaya adigina aad ammaano ummad u haysay oo aad ka ilaalinaysa in shilinka ka baxa uu keenayo in dhaqaale meel kale uu ka dumo oo sawirka dadku ay sawiranayaan maal iyo dhaqaale ka buuxa aan su'aal ka ftana ku weydiiyo waad ka tagtaa wasaaradii maaliyadda iyo shaqadii waad ka jirtay wixii aad doonto aad noqotay nin wasaaradii ka lacagaystay oo guriga ka dhistay oo baabuur ka samaystay oo maraakiib ka iibsaday yaa loo maleynaya maanta ma tahay waaya daba waan soo galiya tane horta wasaaradda maaliyadda sidaan anagu u maareynay adduunkan kala tashanay IMF-ta iyo World Bank iyo Islamic Bank African Development Bank wasaaradda sida loo maareynaya waa inaanan anigu amar intaan bixiyo aanu iska fulino systemkaas ku diidaya haddaan imika waxaan jid ahaan yiraahdo wariya bixiya systemkaan ogolaanayba reject buu siinaya okay marka anigu waxaan iska dhigay just like anybody else halkayga markay soo gaadho ee cid uu waliba soo baan aniguna click siinaya marka anigu authority aan leeyahay kii hore ilaahan jiray malihi mana meesha kuma jirto in anigu authority intaan yeesho dabeetana waxaa la bixiyo waxaan anigu islaahaynay arrinta malaha in la bixiyaa roon waa in dadkoo dhan u yeedho anima arrintan bal ka warrama oo yani system adduunku click markaad siisana IMF-tuna ogaanaysa cid waliba ogtahay marka waa system adag oo aan iyadoo systemka la bedela maahaane anu wasiirku pay ma bixinayo systemkaan ogolaanay meesha marka maaha dukaan khaanaduna soo fadhiyo ma la saaray ma saas weeyaan taasi waa taa weey tan wax ka iibsiya waxaasi daarinta dhowr jeer baa la igu soo qaaday oo la aqalliga xawaad hargeysa ka dhisato waxa la yiri mugtay aniga yani proof waxaan hayaa inaan waxaan haysto anigu waxaan haystay weeyaan dad badan oo bari interview iga qaaday waxaan ku hori horta aqalkan hargeysa ka dhistay te waxaan dhistay 2008 kii waan bilaabay marka summer walba wax yar ku daray u dhamaaday ma garatay landkii imika halkan daarta laga dhisay berigaan iibsaday waa 2013 ya 2003 weeyaan 2003 ayahay marka waxaan ku leeyahay nimankii dadka ila fadhiyay waa niman waxad yeeshaan 1986 intii midkii jiray baan ku leeyahay waqti dheer soo ma waqti dheer de hadda berigaas aanu muqdishada aqal ka iibsaday وانا رنتي صح marka nin mulkiisa Soomaaliya ka shaqeeyay jaamacad baa meesha ka dhigay 2 sano dhigay samarkii baan imeedo aqal baan ka iibsaday meel muqdisho dhexdeeda imika dana niidii ya hadda ma garata marka meeshan tagaba
meel baan ka shaqaynayay meeshaan taga wax baan halkan lafteeda Minneapolis tabaan kula aad wanaag wala socda waan mahadsantahay marka waxaan ka samaysan karaa iska sida la socono Dr. Bale waxa jirta badaha Soomaaliya imika xilligan maraakiib muddo dheer ka kalluumaysanayay ayaa jirta oo qaarkoodna dawladdu ay og tahay oo ay license siiso qaarkoodna maamul goboleedyadu ay siiyaan qaarna dad shiciba ama qabaa'il ay siiyaan canshuuraha ka soo baxa inteenan eegay khasaaraha iyo dhibka ay ku hayaan culayska Soomaaliya canshuuraha laga qaado ma dakhliga inay soo gashaa mise maamul goboleedyada maya waxa lagu heshiiyay dakhliga soo gashaa way iyaga oo marka license la siiyo license baa la siiyaa license-ka lacagta laga qabto account-ka dawladda isku soo gashaa dabeetana hadhow si loogu talagalay ayaa loo qaybsadaa wax badan ma aha runtii waa malaasiisankii baa milyan iyo bariyo wax yar oo aan macno lahayn weeyaan waa ka soo baxa imika waqtigiina dhaafay siyaasadda lagu jiray waxba lama meelaha dayacan weey adeer meelaha dayacan weey marka halkaas soo gashaa mar dawlad goboleedyada iyo ay shireen iyo madaxweynuhu ayaa formula la sameeyay formulaas lagu qaybsadaa formulaas lagu qaybsadaa way